munaasabad soo dhaweyn ah oo loo qabtay ururka dhalinyarada midnimo oo ka dhisan magaalada Laascaanood oo ku soo biiray xisbiga Kulmiye ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiru dawlaha beeraha Cabdiwaaxid Cabdilqaadir Cabdiraxmaan mas'uuliyiinta xisbiga Kulmiye gudoomiyaha gobolka Sool maamulka heer gobol iyo heer degmo ee magaalada Laascaanood ugu horeyn waxaa halkaas ka hadlay mas'uuliyiinta ururka dhalinyarada midnimo oo shaaciyay inay ku biireen xisbiga Kulmiye lana garab taagan yihiin heel iyo hooba annagu haddaan nahay dhalinyarada reer Sool kuna hadlaysa afka gobolka Sool iyo nawaaxigiisaba waxaanu halkan ka cadaynaynaa annaga oo ah 150 inaanu ku biirnay xisbi maxaafidka Kulmiye xisbiga Kulmiye aad iyo aad baan u salaamayaa waana soo dhaweynayaa annagu waxaanu hayn bulshada ku dhaqan gobolka Sool gaar ahaan Laascaanood waxaanu ka tirsanayn ururadii inta badan soo shaqeynayay iminka waxaan ku soo wareegnay xisbiga Kulmiye run ahaantii waxaa farxad noo ah annagoo dhalinyartii gobolka gaar ahaan dhalinyarta ka midowday ururka midnimo inaanu ku soo biirno xisbiga muxaafadka ee Kulmiye markay eegeen siyaasadda dalka ka jirta xisbiyada dalka ka jira waxay go'aansadeen markii ay tala isugu noqdeen shirar badan ay galeen waxay go'aansadeen xisbiga kaliya ee dalka wax u qabtay ee dadka wax u qabtay ee gaar ahaan gobolkeena Sool wax u qabtay inuu yahay xisbiga kale waxaa hadalka isu daba maray mas'uuliyiinta xisbiga Kulmiye barasaabka gobolka Sool iyo sidoo kale agaasimaha wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliland xisbiga Kulmiye Soomaaliland soo ma taageersino soo kaarkii joogno waynu u simanahay xisbiga Kulmiye la idin kama laha waa xisbigiini aad doorateen ku soo biirteen waana idinku soo dhaweynaynaa waxa kale oo ay inta ay dheer dhalinyaradu waa xubnaha nolosha aan isdhegaysano dhalinyaradu waa xubnaha soo marnay waxaynu ku jirnaa marxaladii ugu wacnaa ama casrigii ugu qaalisanaa ee ay dhalinyaro hesho iyadoo maanta talada dalka 25% iyadoo gacanta ku haysa ayna ka tirsan tahay dawladda dhexe iyo maamulada gobolada degmooyinka iyo dhammaan meel kasta oo laga hago mansabka siyaasadeed ee dalka taana waxaa sababay oo sababteeda iska leh waxa xisbiga Kulmiye iyo hoggaankiisa iyo madaxweynihiisa xisbiga Kulmiye markii uu guuleystay dhalinyaradii soo saartay bartii kagama tagin abaalkii buu u celiyay wuxuu ka qayb galiyay golayaashii qaranka oo dhan inay ka mid noqdaan hadday tahay golaha wasiirada hadday tahay golayaasha deegaanka hadday tahay shaqadii kale ee dawladda loo hayay qaybaheedii kala duwanaa oo dhan dambeyntiina wasiiru dawlaha beeraha Cabdiwaaxid ayaa soo dhaweeyay ururkan dhalinyarada midnimo ee ku soo biiray xisbiga Kulmiye xisbiga Kulmiye cod kala siiyaan anana aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay dhalinyarta intaa leeg ee xuduudda leh ee tirada leeg ee intaasoo ka kooban aqoonyahan iyo waxgarad iyo dhalinyartii magaalada iyo waxgaradkii inay nagu soo biiraan aad baan u soo dhaweynay waana tacaawo keentay halkan inaynu ku dabaaldegno innagoo midaysan oo aan ururka midnimada iyo xisbiga Kulmiye ay ku midoobeen ayna wada noqonay xisbiga midnimada iyo horumarka ee Kulmiye aad iyo aad u mahadsantihiin Mawlid Ali Star TV Laascaanood